shir maalmihii ugu dambeeyay u socday odayaasha cuqaasha iyo waxgaradka magaalada Laascanood lagagana tashanayay ayaha amni ee gobolka iyo sidii loo adkeyn lahaa amni darada mudooyinkii ugu dambeysay soo food saaray magaalada Laascanood waxaana hal mar saaka ka soo dhex muuqday shirkaasi waxgaradka magaaladu ay kaga tashanayeen ayaha mustaqbal ee magaalada wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliya Salebaan Yuusuf Cali Koore oo u muuqday mid shirkaasi walaac badan ka qaba waxaan halkaasi ka hadlay waxgarad ugu horeeya boqor Khadar Cali jaamac kamid ah mas'uuliyiinta shirkaasi hormuudka uu ahaa isagoo xukuumadda ku duray amni darada magaalada Laascanood iyo dilalkan soo noqnoqonaya loona geysanayo hormuudka magaalada hadalka baa la yiraahdaa runta laga sheegin wax ka xun baa laga sheegay reer Laascanood hadda waxaan maqlayay maamulka weyn xamanin oo maxaan u xamanaa wixii xaq xan maaha wixii xaq ah lama xanto kor iyo hoosba waa loo sheegay inaynu hadda markii xoogay askari inoo timi hadalladii dee la gaagaabsado ama la bedelo yamaba tashan karayno maamulka waxaan leeyahay shacabku inay xaq bay u leeyihiin inay shiraan waa xaq bay u leeyihiin inay shiraan danahooda ka shiraan weliba wax amni xumaa ma wadaan waa dadkii odayaasha iyo caqliga iyo amniga iyo wanaagga ka shaqaynaya waxa meesha isugu yimid waxay ahayd inaad ilaa hadda waxaad xukun martaba ugu qabsatay marka laydin yeero inaad timaadaan ama halkiina ku sugtaan dad shacaba baa shirayay danahooda ka shirayeen haddii ay bedelkisanayay waxa ay soo gaadhaan qodobada dhan waxa ku jira maamulka magaalada jooga waa inaynu wada tagnaa bay ahayd jishada waxayna taasi waa kalsooni daro arrimaha hadda magaalada ka taagan ee ugu dambeeyay baa ka hadlaya waad ogeydeeno kuwii ugu dambeeyey waxay ahaayeen nin reer cidmeed baa halkaa lagu dilay niman faarax cali baa dilay lama soo qaban kii oo taagan baa misna mid kale ay dileen iyagu ma soo qaban annaga intaanu maamulka u qaysanay rag niman reer cidmeed baa caydsaday maamulka u yeedhay militariga u yeedhay bileeska u yeedhay waa la soo qabtay maalinkii la qabtay baasiilaayayin iyo dawladdii oo dhan habeenkii biyadaamis iyo abaara iyo baa dad ka hadliya laakiin anugu amnigan ka hadliyay kaa maanta aad ka qaylinaysaan baan maalintaas siilaayo hortiisa ka hadliyey oo aan lahaa ha ka tegin waxa kale oo dhan abaartu muxuu bay reebaysaa dagaalka kan taagan ee magaaladii lagu kala qaxayo siilaayow haddaad ka tagtid adaa isku dilay baan shaaricu dhulbaantoo dhan jooga toy nimanka hadda wax dilay ha ka tegina haddeer dil waa waxa laygu haysta aniga godobta laygu gaarka laygu xiyay waa waxa ninkii wax dila waa in la dilaa ma dhicin waxaa la sameeyey maxkamad baa la saarayaa waa la saaray waxaa la jiifiyaa deeban kale arbeerku tii bay hurdaan tii baa misna waxay sababtay in nin kale oo haddii ay bedelka leeyahay miskiina oo dadka hormuudkiisii ah oo ganacsataa in la dilo taasi markay dhacday annagu lugay faras waanu soo qabannay nimankii waxgeysta ee gacanku diiglayaasha ahaa weliba waxaanu ka bilownay si aanu u helno 20 iyo dhowr nin baanu soo xidhnay kii telefoon u dira kii kaakula u dira kii aanu uga shakino inay nimanka uu bixinayo madax walba halkaas aan ku soo xiray nimankii gacanku dhiiglayaasha markaanu soo qabanay nimankii de kale aan dambiga lahayn waa tii la sii daayay waa taad maqlayseen sharaq alqarab ay isaga duushay gacanku dhiiglayaashii baa la sii daayay 20 bay ahayd maxay keenaysaa taasi ninka gacanku dhiiglaha marka ama beeshiisa ha soo qabatay ama dawladda ha soo qabatay in ay haddii ay bedelka leeyahay kalsoonidiiba ka xumaato inay kalsoonidiiba ka xumaato waa laga soo waaday
markaas anigu waxaan u tegay iyo odayaal fara badan oo reer laascaanooda maxamed kaahin baan u tagay oo garaad haddee badanta leeyahay anigu waxaan leeyahay in cali koore maanta isagaa wasiira dhibaatada maanta lagascaarood ka dhacday ugu dambaysana raaskiisii weeyaan waa raaskiisii waxaan leeyahay wasiir nimankii hadda ninkii ugu dambeeyey dilay soo qabo waxaad u soo qabataa wasiirkii baa tahay dhulbaante wasiirkii ugaaliyaha baa tahay wasiirkii raaskaagii weeye arrinta tani bay ka dhacday ee soo qabo markaasaa xukunkaaga iyo wasiirnimadaadaadu meel maraysa in adeerkaabaa wax dilay baxsaday adigu wasiir u tahay 30 ciidan aad isku wareejisaa nabadgelyo ma dhalinayso adna nabadgelyo ku heli maysa kuwii hadeer dilayna soo qabo wax adaa wasiire kuwii dilay ninkii hore ee ina nuuradiina faarax cali ay maadeerada ee muuse faaraxana soo qabo ilaa adaa yidhi dawlad baa kala maamulayso dadka jeelkaasa iyo maxkamadaasaa lagu kala baxayaa oo xeerfeetigii oo qabo 3 nin ee dilay ninkii reer cilmi ninkii maxamed cabdijibir nimankii dilayna soo qabo انت هذاك سويته حنادنا